محمد نور حسن شان لقاب نكمل ديرة saraakiishii ciidamadii uu hogaaminayay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen maanta gurmadyo kala duwan ayaa gaaray mar kale waxay ku dhawaaqeen inay la wareegi doonaan magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dhinaca kale waxaan eegi doonaa maxaa ka jira wararka sheegaya in Laftagareen looga yeeray caasimadda waa markaas Itoobiya ee Addis Ababa wararkii ugu dambeeyay xiisada maamulka Koonfur Galbeed oo markaan waji kala yeelatay ciidamadii daacaddu ah Laftagareen oo maanta digniin soo saaray wararkii ugu dambeeyay ayaan muuqaalkan idin kula wadaagi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal waa maalinimo xada taariikhdu ku aasaysan tahay kowda ama markaas aan raadaya waa 2 bisha 8 Agosto sanada 2026 ciidamadii daacaddu ah madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ku sugnaa duleedka magaalada Baydhabo waxaa maanta gaaray gurmadyo kala duwan mar kale waxay soo bandhigeen ciidamo markaas ka soo goostay dhanka dowladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale war goordhow ka soo baxay madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa iyaguna lagu sheegay in ciidamo ka soo goostay maamulka Koonfur Galbeed ama maamulkii hore hogaaminayay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ay ku biireen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa birmadka maamulka Koonfur Galbeed ee sida weyn kaga dagaalama deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya xiisada maamulka Koonfur Galbeed ayaa mar kale soo cusboonaatay dhawaanayay heed markii waa markaasi taliyay hore ciidanka asluubta General Mahad Cabdiraxmaan Aadan Taliyashub oo markaasi ereyo ka dhan ah maamulka Koonfur Galbeed oo markaasi warbaahinta ka dhawaajiyo waxa uu sheegay in Aadan Madoobe habeen uu si wanaagsan ugu seexad doonin magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu tilmaamay in xilligan wixii ka dambeeyay ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ama markaasi aan iraade ciidamada la dagaalanka burcadka maamulka Koonfur Galbeed oo sidoo hadalku u dhigay ay la wareegi doonaan magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya maanta duleedka magaalada Baydhabo waxa lagu soo bandhigay ciidamo horkacayo afayeenkii hore maamulka Koonfur Galbeed ugaas Xasan Cabdi Maxamed waxay sheegeen in gurmadyadan kala duwan ay soo gaaraya dhawaan gurmad dagaalama dagaal lagu qaadi doono magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay tilmaameen in xilligan wixii ka dambeeyaba ay markaas u dhaqaaqi doonaan dhinaca dagaal markaas ka dhana maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay dhinaca kale ay sheegeen in markaas xilligan wixii ka dambeeya maamulka Koonfur Galbeed si awood ay kaga saari doonaan maleeshiyaadka xamar ka soo guuray oo markaas ku absaday deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxayna sheegeen in markaas ay ka dul qaadi doonaan ciidamada horkacaya Xasan Garguurto ay sida halku dhigeen oo markaas sida awood leh ugu soo duulay magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dhinaca kale shaqadan Nuur Aadan Madoobe isagu waa ka maqan yahay golaha shacabka waxa uu nabarneeyay kursigii xildhibaanimo markaas gudoomiyenimo ee golaha shacabka halkaas waxa markaas ku sima ka xildhibaan Yaasiin markaas ama Marwe Yaasiin Xaaji Samatar waa Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar iyadu ayaa hogaaminaysa golaha shacabka shaqadan Nuur waa u dulqaaday waa culeydka markaas ama culeyska uu saarayo madaxweynaha hore ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen isagu waxa uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeyay si awood uu kula wareegi doono magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dalka Itoobiya ayaa looga yeeray Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen wararka qaar waxay tilmaamayaan in markaasiba loo sheegayo Laftagareen in ciidamada dalka Itoobiya ay isaga bixi doonaan magaalada Baydhabo waxaana markaasi la filayaa in garab uu markaan ka helo Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen dowladda dalka Itoobiya hogaamiyo Abiy Ahmed waxaana markaasiba la sheegay in Laftagareen uu maalmaha soo socdo gaari doono dalka Itoobiya oo isaguna dagaal ay ka socdaan ma Laftagareen dagaalka Itoobiya ayuu ku beeri doonaa base ciidamada Itoobiya markay ka baxaan ay ku beeraan dagaalka Tigray ay la galayaan ayuu markaas uu fursadaas uu ka faa'iideysan doonaa waxaana ognahay in ciidamada dalka Itoobiya ay sida weyn uga sugan magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah ay ilaaliyaan ammaanka madaxtooyada maamulka waa markaas Koonfur Galbeed iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha Shaati Gaduud magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Laftagareen markan wuxuu helayaa fursadii ugu dambeysay uu doonayo inuu kula wareego magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya balse lama oga halka xiisadu ku dambeey doonto maanta duleedka magaalada Baydhabo waxa lagu arkayay ciidamo horkacayo ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo iyagu doonaya in markaas ay la wareegaan magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana markaas la sheegay in xilligan wixii ka dambeeyay gurmad dagaal ama markaas dagaal lagu qaadi doono shaqada Nuur Aadan Madoobe oo
oo doorasho markaasi la sii ogaayba ugu soo baxay hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya haddaba waxyaabaha ka soo kordhay xiisada maamulka koonfur galbeed halka ay ku dabay doonto Itoobiya looga yeeray ee waa markaasi madaxweynaha hore ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo sidoo kale digniinta uu soo saaray waa taliyay hore ciidanka asluubta Mahad Cabdiraxmaan Aadan Taleeshub halkan ayaan idin kula wadaagi doonaa aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal